الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليال waxa aad inoo soo haraysay bishii Ramadaan ee barakeysnayd waxa ka harsan saacado aad u kooban qof kasta oo muslim ahi waxa uu sugayaa oo uu hanweyn yahay sidii uu soomi lahaa bisha Ramadaan waxaanu shaki ku jirin qof kasta oo muslim ahi inuu diyaar garowga ku jiro bisha Ramadaan iyo qaabkii iyo kayfiyadii uu qaabili lahaa una soo dhaweyn lahaa bishan aadka u qiimaha badan walaalayaal ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu ina siiyey cumr iyo caafimaad oo ilaahay jalla wacala xaq u leeyahay in aynu mar kasta ka mahadinno oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uga shukrino oo aynu uga mahad celinno tabaaraka wa tacaala lain shakartum la aziidannakum haddii aad ka mahadnaqdaan nicamkayga waan idin ziyaadin ziyaadaduna waxa weeye nimcada ilaahay subxaanahu wa tacaala ku siiyey inuu horta marka koobaad kuu sugo bimacnaa nimcadaada ilaahay jalla wacala waa ku xifdiyaya mid dheeriyana ilaahay tabaaraka wa tacaala waa kugu daraya qofka caqliga badan ilaahay subxaanahu wa tacaala mu'minka ka dhigay iimaanka lehi waa ka mahadnaqa ka shukriya nicamka ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu deeqay mid muuqata iyo mid qarsoon labadaba nicamkana waxaa ugu weyn iimaanka iyo islaamnimada haddaba waxaa isweydiin leh inaad leedahay kayfa nastaqbilu hada ashahru alcadiim sidee baan u soo dhoweynaa bishan waxa weeye aadka u weyn kayfa nastaqbilu hada ashahru alcadiim bishan aadka u weyn qiimaha badan leh sidee baan u soo dhoweynaa ee loo yaqaano shahru ramadaan walaalayaal waxaan u shaki ku jirin culummadu amba ahlulcilmigu in badan inay ka hadlaan arrinta qadiyadda noocaas iyo qaabka loo soo dhoweynayo bisha Ramadaan iyo waxa lagu qaabilayo ha noqoto kalimaad musajala amba ha noqdaan kutub ahlulcilmigu arrinta noocaas ay ka qoraan iyo rasaa'il walaalayaal ilaahay subxaanahu wa tacaala fi alqur'aani alkariim waxa uu ku yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum alsiyaamu kamaa kutiba cala aladiina min qablikum lacallakum tattaquun u fiirso ilaahay subxaanahu wa tacaala aayadda wuxuu ku bilaabay yaa ayuha aladiina aamanuu bismu liimaan ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala inoogu dhawaaqaya waxaa laydinku faral yeelay siyaam wax loo yaqaano sida ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu faral yeelay uguna waajibiyey ummadihii idinka horreey taasina waxay tusinaysaa soomku inaanu gaar ku ahayn ummadda nebi maxamed calayhi afdal wa atamu tasliima waxaa isweydiin laha haddaba xikmadda ilaahay jalla wacala uu ka leeyahay inuu inagu waajibiyo soomka maxay tahay xikmaddaasi waa mid waadixa oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu sheegay lacallakum tattaquun waa taxqiiqun litaqwa waimtithaali amri illaahi subxaanahu wa tacaala waa si aynu u xaqiijinno alla ka cabsiga ilaahi subxaanahu wa tacaala taqwana aynu waxa weeyaan uga siyaadsanno arrinka noocaas sidoo kale in aynu u hoggaansanno awaamirta ilaahi tabaaraka wa tacaala wa qahru lilhawa naftana amba hawadu waxay jeceshahay naftu markasta waxay jeceshahay waxay doonta inay gaadho iyadana waa inaad muquuniso oo waxa weeye aad ka xakamayso wa taqwiyatu liliraada doonistaadana waa inaad xoojiso oo aad ka dhigto mid waxa weeye awood leh ولذلك إله سبحانه وتعالى محوج لآيات كوكب الجبيي لعلكم تتقون وسيأض حقيتسان وحويان أم بوحد المدنتين إن بوحوين حقيتسان وأدقال أن تقوى ذونا وإن قفك مسلم كي إنقابك إله سبحانه وتعالى وحسك حكسيه التقوى وأهلك عبس رنتي عمل كوين وحويان تقوى لمتشره ولذلك أي الله سبحانه وتعالى قضية إيه حكمة ووجد صومك وشيء لما أنت إنه وحين أبعهن هاي
حين أباهنها التقوى حقيقة وين أباهنها ماشي هذا التقوى ده laga qaato amba meelaha laga qaato waxa kamid ah gaar ahaan soomka bisha Ramadaan hadaba walaalayaal qofka muslimka ahi waa qof ka faa'iideysta mawaasimta khayriga ah Ilaahay subhanahu wa ta'ala xikmadiisu waxay keensatay adoomadiisa inuu u jideeyo waqtiyaal kala duwan oo waxa weeye waqti kastaba فضلي خير فضلي ووته فضلي قاسنا وكدوين وقت ككلام أم بوك فضلي بدني هاي أم بقول للسمية حكمة إلهي سبحانه وتعالى وحي كان ستي إنه ينوتش ديو بشهر رمضان وحويان صوم وين صومنا فضلي بشهر رمضان مثل سوكو بكرامة وفضائل آد أفر رمضان وحوين قرآنك يسنده يحوين هذا أهل العلم أنت بكترتو كبوحده waxay isweydiin lahaa hadaba su'aasheen hadeen soo noqono kayfa nastaqbilu Ramadaan sideen u qaabilnaa in waxa weeyaan uga u qaabilnaa bisha Ramadaan waxaan ku qaabilaynaa marka koobaad bil hamdi wa shukri lillahi jalla wa ala inaynu ummahadinno kuna shukrino Ilaahay subhanahu wa ta'ala kuna faraxno mawsimkan aadka u qiimaha badan Ilaahay subhanahu wa ta'ala inoo jideeyay والله سبحانه وتعالى لأجله أجري لعلكم تتقون وحن الله سبحانه وتعالى وقم هاد علينا وقم هاد علينا وحوي الله سبحانه وتعالى كجارسيي بشهر رمضان سنة فيه هوري بشهر رمضان حلقة يا ودت فرمضان وأتقرنيسو أو ولا له أو أهله أو قرابة له أو إن لا صومي أو بشهر رمضان حتى لما يستي إن إلهي سبحانه وتعالى آنو قدرين حكمتي سنة عليك إنسانين تتكاسي بشهر رمضان يسوق قاعدان ولا ليال تاسي وتفضيل يفضلتين إلهي سبحانه وتعالى تتكاي نقا فضلين ما دام إيوا إني يسوق قاعدين موسم كان لبعض إني كفى إذا يستان وإلهي سبحانه وتعالى إنك إني يسوق قاعدسيي إلهي سبحانه وتعالى وحين كبرين إنو إني قاعدسيو وإني قاعد كوي بشهر رمضان عافمات إيا عبادة صوبا كل ما يسته وحلينا مركا اللهم لك الشكر ولك الحمد إله يوم هدنق إيا الشكر إنت بعضو كوسو ناضي ما دام أن سوق عرسيسي موسم كان آدك وناكسن آدك قيمها بدن وحلور دقا أنو ترين ولا ليال وحيابها لغسو دوينيو بشهر رمضان وحكم ذا نستقبله بتوبة إلى الله سبحانه وتعالى إن إلهي تبارك وتعالى أتوبت كأنه وإن أصنع قلنا حق إلهي توبضوا والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى وإن حق إلهي أنه النقضة وحويان ذنوبتا معاسدا نوعية كلا دون أو ننقفك مسلم كو حبحه سيء حقيقية توبضة شروطه دي شروطها توبضة وحوية ذنبي السميسية معاصدي إن المركة كوبات كمرقوته ood ka qoomamayso marlabaadka inaad waxa weeyaan go'aan ku gaadho ficilkii iyo xumaantii ka dhacday in aan dib oo dambaysa u sameeynin shardiga saddexaad waxa weeye ay culimadu sheegaan inaad waxa weeyaan horta dambiga iyo wixii aad ka dhaxbaxdo waayo qof wixii ku dhex jira iyo dambiga iyo macaasidii suurtagal ma inuu yiraahdo toobad keenaya marka waxa loo baahan yahay inaad ka fuqdo oo aad ka go'do oo aad ka dhaxbaxdo waxaanad ka toobad keenayso oo dambiga ay macaasida wala layaal an al-inabatu min jami'i adh-dhunubi wal ma'asi wa amrun muhimun jiddan inay xagga Ilaahay u noqono subhanahu wa ta'ala kala noqono dhunubta macaasida dhamaan wa arin aad u muhiima ولذلك إلهي سبحانه وتعالى لفتيس أيانه وياري يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله هذا أوفيرسو جل وحوليه سبحانه وتعالى وحد كتر النبي محمد الضوامضة يا عبادي الذين كوا وحويان كو قضب فلي بمعنى نفتو دي وحويان كقابيي ها لا تقنطوا من رحمة الله هكا قوسانين رحمة الله سبحانه وتعالى أسرفوا على أنفسهم يعني نفتو دي محيكو سمايين مالك استوائي ديجين ذنوب يا معاسي بيدح دباشين
naftooda ay ku xadgudbeen. walidaalika ilaahay subxaana wa tacaala waxa uu leeyahy kuwa noocaas yaanay ka quusanin raxmadda ilaahay tabaaraka wa tacaala. limaada? ina allaha yakfiru adunuuba jamiica. ilaahay subxaana wa tacaala dunuubta dhammaanteed waa dhaafa, dhammaanteed jamiican biduuni istithnaa. inahu huwa algafuuru alraxiim. allahu almustacaan. waaniibuu ilaa rabbikum waaslimuu lah min qabli an yaأtiyakum alcadaabu ثuma laa tunsaruun. aayaddan dambe waxa ay tilmaamaysaa inaynu u noqonno xagga ilaahay subxaanahu wa tacaala oo ilahay inu isku dhiibno aynu u hoggaansanno ka hor cadaabka ilahay intaanu iman. lianna cadaabka ilahay mar hadduu yimaado cid leexinaysa oo qabanaysa oo ka hortegaysaa ma jirto. marka fursad maxaad ku haysataa ka hor intaanu cadaabka ilahay subxaanahu wa tacaala imanin inaynu toobad keenno oo xagga ilaahay u noqonno. yaa cibaadii inakum tukhطi'uuna biاlleyli waاnnahaar وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. وفي حديث القدسي وحورني إمام مسلم ومن حديث أبي ذر رضي الله عنه إلى وحل لي أدوم ضيدي يوم قف يا خلط بات كل عيسان هبينك يا مالنتي لبضبا أنا وحنا هاي كالذنوب لما أنت وحوين العافة يعني استغفار يدمي دافي ويديستا آن idin dambi dhaafe. waa xadiis runtii aad u qiima oo aad u qiimo badan. walidaalika rasuulka waxaa ka sugnaaday calayhi salaatu wasalaam ilaahay tabaaraka wa tacaala addoonkiisu marka uu toobad keeno waxa weeye dunuubtii iyo macaasidii ka soo noqdo in ilaahay subxaana wa tacaala farxadda uu ku farxo, waxa weeye toobada noocaasa uu ku farxo. walidaalika waxaynu ka toobad keenaynaa beenta, waxaynu ka toobad keenaynaa bidcada, waxaynu ka toobad keenaynaa macaasida, waxaynu ka toobad keenaynaa shirkiga noociisa kala duwan, waxaynu ka toobad keenaynaa xanta dadka aynu xamanayno, waxaynu ka toobad keenaynaa qabyaaladda iyo qurunka, waxaynu ka toobad keenaynaa waxa weeyaan dembi kasta noocu doono ha noqdee.